معلن عبد القادر محمد معلن حيتو كسودو برنامج اسمه هناك waa kaaga mahadinayaa Cabdiraxmaan sida wanaagsan ay ugu soo dhaweysay barnaamijka Tuswanaag adiga Sharmaake waxaan idin rajaynayaa in barnaamijkan uu noqdo barnaamij xiiso leh oo qiimo leh oo dadka ay ka faa'iideen wax badan sida dadka uga faa'iideynaysiin ما شاء الله معلن مدة بدن آيات معلن سو ahayd arday badan wax soo bartay marka bal iga waran waxbarashadii ardayda aad bartay iyo macallinimadii guud ahaan still weli waxbarashadii waa sidii ay maskaxdeeda ugu jirtay ayay weli ugu jirtaa waana xiiseenayaa waxaana dareemayaa inta badan in la kulma arday yar oo shalay markaa wax u dhigayay maanta heer dugsiga sare gaaray ama jaamacadda gaaray oo dareemay faa'iidada waxbarashada ay leedahay iyo waalidiin badan oo ka faa'iideystay carruurtoodii intoodii badda ku soo dadaalay markay yaraayeen dhankooda waxbarashada marka weli waxbarashadii waa jecelahay waana daba taaganahay waana ballanteena haddaan Soomaali nahay inay ballanteena noqoto waxbarta aan barwaaqo gaarnay erayga kaliya aan barwaaqo ku gaari karnaa waa eraygaas waxbarta aan barwaaqo gaarnay ay arday aqoonta u helano aroortii baan kacna asluuban jidka u marnaa waxaan aadnaa dugsiga af Soomaali baanu dhiganaa alif baanu baranaa akhrina ku laaqaynaa maadaama aad og tahay inuu caafimaadkaaga wax iska bedelay sidee hadda dadka wax u bartaa runtii su'aal fiican waaye shalay iyo maantay shalay indhaa qabay dadka hor fadhiisanayay qalin waraaq aan qaadanayay iyo buug iyo maxaa leedahay marker saboorta wax ku qorayay qofka waa arkayay waxaan qorayna waa arkayay si wanaag maantay nolol cusub aan galay waxaan galay maxaa la yiraahdaa nololtii hore ka duwan marka maanta wax ma arko laakiin waxna ma qoro laakiin wax waa qori karaa laakiin wax ma arki kari waxna ma qofka wax u dhigayana ma arki kari bad cilmigii weli aqligaygu ku jira ilaahay cilmigayga ma qaadin maskaxdeeda waa shaqeynaysaa arabkayga waa shaqeynayaa waxa kaliya laga qaaday waa indhihii hadda aan waayana aqliga ama cilmiga ma aha indhaha waa nuurka ilaahay uu ku siiyey gudaha ku jira hadda weli ka nooshahay cilmiga gudaha kuugu jira ama aqliga gudaha kuugu jira ama nuurka gudaha kuugu jira hadduu weli nool yahay weli wax waa bari kartaa waxna dadku waa bari kartaa aniga noocaan ah oo ilaahay siiyey maxaa la yiraahdaa maantay xigmadan iyo aqligan maanta kaga sheekeynaya waa cilmi cusub oo waxbarasho cusub oo ilaahay ugu dayaya shalay iyo maantay farq ii dhaxeeya maantay aniga noocaan ah waxaan rabaa inaan iskuul aada oo aan barta aan diyaariya chemistry classes ana weliga chemistry class qaadan waagaan yara igu dambeysay maanta waxaan rabaa inaan diyaariya chemistry classes sababtoo ah aniga indhahan beele maahane nuurkii aqliga ma beelin carabkaygu shaqeynaya gacmaygana waa shaqeynaya waxa ku saaray dadka si caawinta stiil dadka waa caawinaa laba qaybood ku caawinaa qofka inuu asaga yimaada waji ka waji oo wixiisa oo weydiiyo su'aalihiisa uga jawaaba ama qofka inuu by phone ugu soo waca telephone meel kasta uu jooga su'aasha telephone ay weydiinaysaa telephone kaaga jawaabaya waxa waa qoranaysaa waa la tagaysaa qofka su'aashiisa saga la imaanaya uu ii sheegaya su'aasha anaga buuq ma baahni qalin ma baahni jawaabta ka sheegaya ilaahay macmiisiyo waay ilaahay aan ku mahadinaya asaga awood iska leh marka qofka buuq kasta uu la yimaada intaan aqoonteeda gaarsiisan tahay uma baahna inaan wax qorabo waa u sheegaya qofka saa qoranaya asagaana ka shaqeynaya asagaana jawaabtiisa qaadanaya waa nicmo kale oo ilaahayna siiyey haddaba waxaan ku baraarujinayaa qofka hadduu indha beela micneeda ma aha inuu noqday handicap ama disability inuu noqday ama qof la nacay oo waxba arki karin oo faa'iido lahayn ma aha qofka hadduu indha beela weli faa'iido leeyahay waa laga faa'iidaysan karaa waa geed miro leh siiba awoodda uu macallinka ilaahay siiyey macallinku waa nicmo weyn aan la heli karin oo dadka oo dhan iska heli karin macallinku waa malab oo dadka oo dhan ay dhadhamiyaan oo qof kasta markuu dhadhamiya uu jeclaanayo macallinka waa sweet ee dadka oo dhan jecel yihiin inay cunaan macnaha markaan ku leeyahay waa cunaysaa waxa way aqoontiisa ayaa ka faa'iidaysanaysaa markaa ka faa'iidaysatid waxaad dareemaysaa faa'iidada uu leeyahay macallinka waxaan qoray 8 buug xisaab horta 8daas buug xisaabta ah waxa ugu horeeya chapterka koowaad waa addition ama ku dar cutubka maxaa leedahay casharka labaadna waa ka jar casharka saddexaadna waa ku dhufo casharka afraadna waa u qaybi casharka shanaadna waa fraction kan kalena waa algebra 2 kan kalena waa geometry so 8 buug oo noocaas horta la qoray oo isku xiga
runtii qofkii oo qaatana 8 buug wax badan ayuu ka faa'iidayaa waxaan kaloo diyaariyey buugaa ku saabsan sheeko la yidhaahda kutir kuteen waa macna xiitu iska alifa isaga oo waa waxyaabo cajiiba oo maskaxda bini'aadamka kor u qaadi karta qofkii caqli lahan uu ka faa'iidaysan karo waxaan kaloo diyaariyey oo aad iyo aad maxaa la yidhahda ugu dhuuntaleela af soomaaliga sidii ilmaha af soomaaliga loo bari lahaa iyo inaan sameeyo waxaa la yidhahdaa maxaa la yidhahda buugga sawirada oo ilmaha wax kalema ka baranayaan sawiraday ka baranayaan keliya iyo magacyadooda iyo sawirkii oo buuggii ku qoran aragti ah marka iyo sidee loo yidhahda af soomaaliga markaan raba inaan bartaa sida loo yidhahda serviska oo kale af soomaaliga sida loo dhahaa kasoo qaadoo kale haddaan raba inaan idhahdo waraabi meeqa silibuu ka koobaya ama meeqa erayuu ka koobaya ama meeqa xaruf ka koobaya waraabe inaa saas loo kala jarjaraa qaabka loogu dhawaaqi lahaa in ilmaha la bara marka waddankan ha ku dhashaan ama ha ku koraan ama cid kasta ahaada laakiin waxay ku baranayaan sida af soomaaliga loo dhahaa iyo sida marka buugaag badan ayaa noo soo wadaa hadduu ilaahay nafta ii daayo ama naafo ahow ama ha ahaan ama lixaad qaba ama ha qabin alla xaggiisa horta waa u simannahay isku mid aan ka nahay waxaan ku kala duwannaha male waxaan isku dheernahay oo ku kala duwannaha waxa waale waa qof walba iyo kartidiisa qof walba iyo kartidiisa soomaalida waxay ku maamaadaa laxa waliba shilinka dhigtaa lagu qalaa dad badan waxaa jira oo lixaad qaba aan ka faa'iidaysan dad badan waxaa jira oo lixaad qaba oo si khaldan u isticmaala oo aan sidii ilaahay ugu talagalaa u isticmaalin waxaa jira dad aan lixaad qabin laakiin ka faa'iidaystay oo ka fiican kuwa lixaad qabin aniga haddaan iska soo qaada hadda waa indha beelay micnaheeda ma aha inaan fadhiisanaya maanta markaa indha beelay ilaahay nicmo kale u siiyey waxaan ku dadaalay horta hore inaad diinta bartabo wax la dhegaystaabo cilmiga dhan waxaa u bedelabo inaad dhegaystabo maanta waxaan ku jiraa inaan 140 ka xafida yacni waxaan bartay jaamacad kale aan ku jiraa labo midda kale indhahan aniga dhibaata kala maqlayn sababtoo ah awal macasiyaan ku fiirsan jiray movie aan ku fiirsan jiray awal maxaa la yidhahda meelaha khaldan aan ku fiirsan jiray awal sports aan ku fiirsan jiray maanta ilaahay waa ilaahay nicmo iga siiyey maanta dembi ma ka helaayay aragga hadduu ilaahay aragga iga qaaday micnada maaha inaan axnaaqayo alxamdulilah culays dhan ayuu ilaahay iga qaaday maarka inuu dembi aan ka keeni lahaa waa ku mahadinaya ilaahayga awooddiisa siiyey maanta laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheegaa si kasta oo aad lixaad u leedahay meel ka mid ah ama xubin ka mid ah haddaaba marka dhiman qalbiga hoose waa waxbara karta waxbarashadu waa muhiim ama lixaad qab ama ha qabin siiba dalkan aanimad annaga halka wax keliya ee lagu dagaalamaya waxa waaye waxbarasho waa education annaga maantay waxaan kula dardaarmayaa cid waliba oo iga dambaysa ama daawanaysa programkan maanta waxaan haysanaa waa awlaadaas keliya ee Soomaaliyeed ee aan rabnaa inaan iyaga u istaagna oo aan waxbarnaa oo aabbo iyo hooyo kulli aan iskugu tagna miiska ee buugga qalinka aan fadhiisano waxaan rabaa suuqyada aad samaysateen oo kale intaasoo suuq oo waxbarasho in la sameeya mid korontada baranaya mid fiila baranaya mid guriga baranaya mid computer baranaya mid caafimaadka baranaya inaan iskugu tagna kulligeen aan soo saarnaa dad kaadiriina oo waxbartay oo ama lugaha haddaan la-dahay عقلي عرب كندي قامي وشقينا يعني هوا بركرتا كمبيوتر فرفر كرتا وحلي كرتا وحكي شقي كرتا اوتوموبيل حكي شقي كرتا وحكي سبي كرتا داد لوغلا ضاي معناه ما جيس انا اما هو لوغلا غاريان كسعد اما بركر لا ما جرتو هوا بركر لا marka hada inda laay haba barakara sabta gacanta ka shaqeynaya fiila liiba waxa xiraaya computerka liiba inta geli waa geli kara inda ba qabo gacanta waa shaqeynaa aqliga waa shaqeynaya marka waxaan ku dardaarmi lahaa inteena kulligeen inaan iskugu tagnaa inaan wax barana keliya nolosha aan haysano maanta ama furaha aan haysano waddankan ay nagu caabudayaan ama nagu ixtiraamayaan ama nagu dadaalayaan nooga hibaysanayaan waa inaan waxbarashada u dareernaa marka waxbarta aan barwaaqo gaarnay waxbarta aan barwaaqo gaarnay ama shantaa macallin